kusoo dhawaada channelkeena FK Media. Fadlan hadaan ugu subscribe gambalka konfursiyo kusoo gaaro muuqaal baan soo gelino. Haasidka iyo haasidnimada. Haasidnimadu waa udur ka mid ah udurada ugu maanta badan. Waa udur inuu Allah u toobadkeeno mooyee qofka haasidka ah halaagsanayo adduun iyo aakhiraba. Haasidku wuxuu ku hanuunsadaa khayr uu korko walaalkii ama walaashii. wuxuuna nafsad ahaan daawo kaliya marka uu khayrkaasi dhaafo walaalkii ama walaashii. malaa'igtii oo dhammi waxay aqbaleen amarkii Allah subhanahu wa ta'ala oo waxay u sujuudeen Aadam balse Ibliis waa uu diiday. kolkaas ayaa laga soo saaray nimcadii uu ku jiray taasoo ay ugu weyneed dhawaashihii uu rabbigiisa u dhawaa waxaana loo ballan qaaday inuu aakhirana ku waari doono jahannama. waxaas oo dhan waxaa sabab ugu ahaa haasidnimadii uu Aadam haasiday. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ina faray inaan isaga magangalno kana magangalno haasidka iyo shirka. Muawiya wuxuu yidhi qof kasta waa raaligelin karaa marka laga reebo qofka haasidka ah maxaa yeelay qofka haasidka ah kuma qanco waana inaad waydo nimcada uu ku arkay. rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam waxaa ka sugnaaday inuu yidho dadka khayr ayay ku sugan yihiin haddii ayna ishaasideen. waa halka kaad inay tahay haasidnimadu shar weyn oo bulshada ku dhex jira kaas oo khayrkii u imaan lahaa ka kameynaya. labadii wiil ee ilmo Aadam kolkii midkooda laga aqbalay qurbaankiisii kii laga aqbali waayey meeshii uu amalkiisa hagaajin lahaa oo uu Allah u noqon lahaa wuxuu haasiday walaalkii wuxuuna ugu hanjabay inuu dilo ilaa uu ka dilay. rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam waa inoo sheegay inuu qaabil qeyb ku leeyahay qof kasta oo hagdaro lagu dilo. waxaas oo dhanna waxa ugu waanaa oo sabab u ah haasidnimadii oo walaalkiisa haasiday qurbaankii laga aqbalay.